munaasabad si heersare loo soo agaasimay oo soo qabanqaabiyeen jaaliyadda Soomaaliyeed ee reer Hiiraan ayaa wax lagu qabtay waqooyi galbeed ee magaalada London. munaasabadan ayaa waxa ay ahayd mid si heersare ah loogu soo dhaweynayay gudoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan ee dhawaan u soo magacaabay dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Cabdi Fataax. dhanka kale munaasabada ayaa waxa lagu sagootinayay gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Cabdi Faarax Laqanyo. munaasabadan oo ay soo agaasimeen gabdhaha reer Hiiraan ayaa waxa ka soo qayb galay waxgarad siyaasiyiin iyo cuqaal, iyadoo munaasabadu ay ahayd runtii mid ay si aad markaasi ugu soo dhaweynayeen gudoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan. haddaba dadweynihii ka soo qayb galay iyo abaabulayaashii xafladda ayaa hadaladoodii waxa ka mid ahaa sida tan. xalfadda caawa halkan taalo waxay ka kooban tahay saddex arrimood. saddexdaas arrimood waxa waaye koow waxa lagu soo dhaweynayaa gobnatorahana gobolka Hiiraan Cabdi Fataax Xasan Afrax, waxaana lagu sagootinayaa gudoomiyahana hore oo qiimaha badnaa oo qaayaha badnaay Cabdi Faarax Laqanyo. xalfadda caawa halkan ka socoto waxay si toos ah ugu beegan tahay aynu u saameynaysaa oo gogashan quruxda badanna loo dhigay waxay ku beesgaraysan tahay gobnatorahana cusub Cabdi Fataax Xasan Afrax. midda kale waxaan mahad u celinayaa habeenka caawa oo munaasabadan uga faa'iideysanaya ciidanka qalabka sida ee gobolka Hiiraan. waxa kale halkan aan baaq ugu jeedinayaa oo leeyahay noolaada ciidamada hil walaal ee ciidamada Djibouti. kii hore u joogo laga bedelay iyo midka cusubba aan midna ku sagootinayno midna aan ku soo dhaweynayno aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin ciddii arrintan maskaxdeedu ka timid een abaabushay. inta haddaan idhaahdo waxay la tahay waxaan si niyada oo farxad leh oo kalsooni leh oo walaalnimo leh oo muslimnimo leh aanu ku soo dhaweynaynaa ka gobol ahaan Cabdi Fataax Xasan Afrax gobernatoraha cusub ee gobolka Hiiraan ayaanu ku soo dhaweynaynaa. waxaan ka rabnaa gobernatoraha cusub haddii eebbe idmo dadka reer Hiiraan dhammaantood inuu u guntado u tafaxeeyto sidii midnimo ugu soo dabaali lahaa dadka degan gobolka Hiiraan ee walaalaha ah ee isla dhashay ee qoysaska faraha badan ee reer Hiiraan. waxaan ka sugaynaa ee aan u jeedinaynaa gobernatoraha cusubi inuu dadkaas asigoo kaashanaya isimada asoo kaashanaya dadka hogaamiye dhaqameedyada asoo kaashanaya inuu nabadgelyadooda iyo midnimadooda iyo niyad isku furidooda inuu ku dadaalo una tafaxeeyto waan u sheegaynaa waana ka codsanaynaa gobernatoraha cusub. waxaanu leenahay gobernatoraha cusub hawsha culus ee lagu xil saaray ilaahayna kuu gartay dowladduna ay kuu magacaawday Cabdi Fataax Allah kuu fududeeyaanu leenahay. waxaa waaye Cabdi Fataax waa ogahay aniga inuu dadka isu keenayo, aqoon baan u leeyahay. dadka degan Hiiraan wuu isu keeni karaa waana isu keenayaa. dadka iimaanka Allah geliyo, iimaanka Allah geliyo dadka oo madaxdoodana ha ka dambeeyeen oo hala shaqeeyeen. munaasabadan caawa runtii aan wada markhaatida ka wadanahay waqtiga dheerna aan u soo hornay oo aan ugu helanahay runtii si niyad ah. waxay ku saabsan tahay soo dhaweynta gudoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan Cabdi Fataax Xasan Afrax. ayaa marka koobaad ay asal u tahay oo waa soo dhaweyntiisa. waxaa jira dalka dad baa dib ku haya
dadka dhibka ku hayana waan naqaanaa marka waxaan ugu baaqayaa haraadiga al-shabaab ama nabadiidka saan u aqaano ee ku haray gobolka hiiraan iyo gobolada kale ee dalka in once and for all ay dowladda iyo ciidamada Amisom ay ka taqalusaan. cabdirasaaq aadan geedi cabsaaq ismaayo wararka SNTV London.